maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolka Hiiraan ayaa maanta dil toogasho ku xukuntay nin eedeysana oo ay ku tilmaameen inuu horay dil uga fuliyay magaaladaasi Beledweyne iyagoo ku eedeeyay in ninkaasi uu dilay gudoomiyihii hore odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan. Faafahinta warkan waxa magaalada Beledweyne nooga soo diray wariyahayaga Cabdirasaaq Al-Cadaala. mukhtaar xasan maxamed oo ahaa shakhsigii dilay gudoomiyihii golaha odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan Sheekh Maxamed Xuseen Maryaade taariikhdu markay ee 27 bishii 11aad sanadkii 2012 ayaa xukunkiisa dilka waxa uu maanta ka dhacay fagaaraha Lamagala ee magaalada Beledweyne. goobta lagu dilayay mukhtaar xasan maxamed waxa ku sugnaa boqolaal qofood oo shacab oo kamid ah dadka ku nool magaalada Beledweyne ehelada gudoomiyihii golaha odayaasha dhaqanka iyo waliba maamulka gobolka Hiiraan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya taliska booliiska gobolka iyo waliba kan degmada Beledweyne. markii uu dhacay xukunka mukhtaar xasan maxamed kadib ayaa waxaynu la hadalnay taliyaha qaybta booliiska gobolka Korneel Isaaq Cali Cabdulle waxa uu ka sheekeeyay xukunkan dilka ee lagu fuliyay mukhtaar xasan maxamed oo dilay gudoomiyihii golaha odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan. maanta taariikhdu tahay 5 bishii 8aad 2013 waxa xukun dil lagu fuliyay gacan ku dhigle mukhtaar xasan maxamed in xaawo macallin Isaaq 18 jir ah ku dhashay degan Baydhabo wuxuu si bareer